munaasabad aad u ballaaran oo lagu xuseeyay sanad guuradii 21aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay dowladda Puntland oo ku beegan 1 Agoosto 1998 ayaa saaka lagu qabtay barxadda weyn ee caasimadda Puntland ee Garowe. Waxaa goobjoog ka ahaa munaasabadda madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Dani, ku-xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash, gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh oo ay weheliyaan xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, gudoonka xildhibaanada golaha wakiilada Puntland iyo xubno ka tirsan golaha xukuumadda Puntland. Marti sharaf iyo kumanaan kun oo dadweynaha ah ayaa ka soo qayb galay. munaasabadan oo ahayd mid ka duwan munaasabadihii hore ee sanadihii hore la soo bandhigi jiray ayaa ahayd mid shacabka Puntland xiiso gaar ah u lahayd, waxaana barxadda ay munaasabadu ka dhacaysay meel kasta looga sharaxay calanka Puntland oo uu ka dulbabanayo calanka Soomaaliya, iyadoo shacabka xuska isugu soo baxay qaarkood ay ku labisnaayeen dhar ka samaysan calanka Puntland iyo Soomaaliya iyo dharka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed. sidoo kale cutubyo ka tirsan ciidamada dowladda Puntland oo ku qalabaysan hubka noocyadiisa kala duwan iyo gaadiidka dagaalka ee gaashaaman ayaa munaasabada ku soo bandhigay gaardis iyo dhoolotus ay ku muujinayaan cududooda iyo siday heegan ugu yihiin ilaalinta difaaca sharafta iyo dowladnimada Puntland. amniga caasimadda Garowe ayaa si aad loo adkeeyay, waxaana sugayay ciidamo gaar ah oo loogu talagalay amniga. ugu dambeyntii madaxda dowladda Puntland iyo mas'uuliyiinta dowladda federaalka ee ka qayb galay munaasabadda ayaa qiray in Puntland soo bandhigtay xuduud Soomaaliya ay ku faani karto, waxaana khudbadahooda ay dib ugu dhigteen xaflad lagu wado caawa inay ka dhacdo madaxtooyada Puntland. عبد النور يوسف عبد الله بكيلة تلفزيون عالمي Ariel TV مقلة Garowe.